ina guursana way dhaafayaan intayga TikTok la soo fadhiisana ano afka ayay furatay fanaanada lagu magacaabo Malyumaanka waxa ayna tiri Malyumaanka aniga iyo Sharma Arki Cabdinaasir oo lagu naanaysa Sharma Boy waxa inaga dhaxeeya ubad isla mar ahaantaana ma jirto wax isku dhaca mana imaan karto ayay tiri inay wax kasta hagaagsanaadaan mooyaane baraha bulshada waxay tiri aniga ayaa mar kasta la igu hadal hayaa Malyumaanka ayaan ku arkaa meel kasta aniga iyo Sharma Boy waxaana ay dad ubad uu ka dhaxeeyo oo walaalo ah waxay sidoo kale tiri nin kale miiska guursadaa sida aan uga dhaxbaxo haddaba dadkan buuqooda oo TikTok-gayga ma loo soo fadhiistaa haddaba xog ku saabsan gabadhan fanaanada ah ee wiilka u haysa Sharma Boy ayaa tiri sidan waa xad dhaaf ee Soomaaliyay iga daaya waxaad igu wadaan muuqaal toos ah oo ay arrinka iyo arrimo badan kaga hadlayso ayaan ku hayaa daawade Malyumaanka oo waxyaabahaasi sharaxaysa balse muuqaalka intaan u gudagelin waxaan ka codsanaynaa daawade muuqaalka siduu u baaho inaad muuqaalka like saarto oo aad la wadaagto saaxiibadaada kana mid noqoto saaxiibada ku xidhan baraheena bulshada ee Ducaysana Media ku mahadsanid daawade kulanti habboon saaxiibayaal meel kastoo aad dunida daafaheeda ka joogtaan ku soo dhawaada channelkeena Ducaysana Media oo aan idinku soo gudbino warbixinada xiisaha leh isla mar ahaantaana markaasi taagan muuqaalkeenan saaxiibayaal waxaan ku dul istaagi doonaa oo aan ku sharaxi doonaa hadal ka soo yeeray ama muuqaal toos ah oo live ah oo ay ku jirtay gabadha lagu magacaabo Malyumaanka oo ah sawjadii hore ee fanaanka lagu magacaabo Sharma Boy isla mar ahaantaana uu ka dhaxeeyo ubad waxay tiri aniga iyo Sharma Boy waxa inaga dhaxeeya ubad oo waxba ma jiraan dagaal ah inay xaaladdu hagaagsanaato mooyaane balse waxay tiri Soomaalida ayaa waxa ay kala wadwadaa mar aan share out u sameynayay maadaama aniga oo kaliya laga rumaysanayo ciwaanka TikTok saxda ah uu leeyahay Sharma Boy walow kiisii hore uu hawada ka baxay ayay waxay tiri markii aan share out-ka u sameeyay dhammaan dadkoo idil waxay hadal hayeen inaan aniga iyo Sharma Boy isku soo noqonnay balse ma jirto ayay tiri arrinka oo aniga iyo Sharma Boy waxaan nahay dad walaalo ah haddaba daawade ila daawo muuqaalkan oo ay cabashada ku gudbinayso afkana ay ku furatay fanaanada caanka ah ee lagu magacaabo Malyumaanka ahna haaskii hore ee fanaanka lagu magacaabo Sharma Boy alxamdulillah rabbil caalamiin video qurux badan naga dhaxeeyo ما شاء الله intii kare dad ma arkin oo meel isku soo fariisan kari dad iscaay kari midna ma nihin sax exactly ciwaankiisa hore ka halaabay markii لا صعدة waxa sameeyay شرط دول سكسو زين ma arkin oo dadka ay u arkaan kiisa saxda waay kiisa saxda qofka kaliya laga rumaysan karaa ah moogta aad ugu dhow exactly marka waa soo dhigay nafta iga qaadeen masku noqoteene ma ishago حج على حج حلده فريش way hor carareen bo هاي ولا بيش عدي بتغت أولاد يالان ما شاء الله dadku is xiriirinayaan marka walaal way hor carareen Soomaalida dhaq waxay taqaata laba qof kale kala isku mooda inay cadow isku yihiin oo kale Soomaalida isku mooda moogta law cadow iska kaay dhigin ما شاء الله marka gabar walaasheena way xafan Soomaali Maxamed ka dhaca ilaa kheenisiye ya ka dhacniyo ina guursana way dhaafayaan intayga TikTok la soo fadhiisana ano ما فاطمة مليونك ما كذا هيت قبل هيت كجاسين هيت كيس كتر بدنا ضد بدن با تيك توك هيت كجاري حالة بدن سميين xaalado badan sameeyay wallahi ku mahadsanid daawashada muuqaalkan fadlan sidaad ula socoto xogaha maalinlaha ah ee aan soo gelinno baraheena bulshada ee Ducaysana Media YouTube iyo sidoo kale page Facebook muuqaalka la garee oo ku soo biir baraheena bulshada mahadsanid daawade